السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. رمضان مبارك. وأنا نقول السلامي دمانتين Soomaali oo dhan gaar ahaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa salaanta islaamka aynagu salaamay Ramadaan mubaarak dhammaan Soomaali meel kastay joogto gaar ahaan gobolka Salal iyo Zaylac ee Ciise Weyne uu degan yahay qowmiyadda Ciise ay degan tahay iyo inta kale ee Soomaaliyeedba shalay afturkii odayaasha buurama ka yimiday ay ugu tageen madaxweyne Cirro soo dhawaad uu ka yidhi keligaa baa kuu baahanay ka yidhaaheen keligaa ayaan kuu baahanay ka yidhaaheen inaan kula hadalno wasiirkiisa arrimaha gudaha Cabdalla Sandheer isa soo gara fariisiyey aysa soo gara fariisiyey laba qodob bay weydiisteen horta qodob bay weydiisteen qodobkay weydiisteen warrama buu ka yidhi kolkaas salal iyo waxay salal haygala hadlina buu ka yidhi awdal uu ka hadla buu ka yidhi waxay ka yidhaaheen Cabdalla Sandheere naga bedel inna lillaah ha maxaa la yidhi sagaaradu xaal la arkaya ayay aasaastaa inay kolkii hore ayay u gashay ahayd maahin Sandheere naga bedel bay keeneen wasiir kale noo keen ha wasiir u dhashay awdal noo keen arrimaha gudaha inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun haye ma dhammaysateen ha dadka annakuna ciyaaladii qoryahan siinay qaramee Cabdalla Sandheere naga bedel oo ninkada bulshada noo keen inna lillaah wuxuu ka yidhi Cabdalla Sandheere waa gacantayda midig buu ka yidhi gacantayda midig weeyaan buu ka yidhi Cabdalla Sandheere madaxweynenimadu iyo mas-uulnimadu waa cagaho dhulka lagu hayo Cirroy karaamadaadii badday la galeen ee isdaba qabo wuxuu ka yidhi gacantayda midig weeyaan Cabdalla Sandheere maxay kale guddiyaal saddex bay weydiisteen Cabdalla Sandheere ciyaalada qoryaha u iibinayaan qaramee ciisana godol noo dhig wuxuu ka yidhi Cabdalla Sandheere waa gacantayda midig guddi baan waxeeyey guddidaa baan ka war sugayaa guddidaa wixii ka soo baxa arrintan ciyaalada qoryaha u iibina qarameena waxaas waa waxaan ka fikirayno haye ilaahay waa cajiib anna waxa halkaa ku darsanayaa marinayaa intaabaa lays yidhi tolkay weyne waxaan la hadlayaa 34 sano iyaa dulmadaydeen labada mas-uul ee soo maray Somaliland waxaa ugu darnaa Daahir Rayaale inuu Daahir Rayaale ugu daran yahay Ciise dadkii dhibaateeyey lambar 1 ka yahay iyo Cirro de 4 sano waliba sanadii dhib uu jooga haddii 2 sano ahayn sanadii 2 sano badhe inuu dhamaysanayo Allah yaclam inuu bari gaadhayo inuu 4 sano gaadhayn wadkiina uu jiro waqtigiina uu jira kolkaasi waxaan ka codsanayaa tolkay xildhibaanada ka soo baxaya Zaylac iyo Lughaya Ciise maahine ilaahay baaba inagu qabsanba 34 sano dulmadaydeeda weliba inagama kicine odayaasha intaa soo maray isma dhaatay dhasheedii baa ahayn laakiin labada ugu darna ninka ugu darna Daahir Rayaaluha ee Lughaya maarta hoosgeeyay Boorama ee Boonna hoosgeeyay Zaylac muxuu intaa ka fikirayaa waa badda Lughaya wax dhici kareen war Afrika inuu Afrikaanku waa dhowr iyo 50 dawladood alaha 16 dawladood baa bilaabada ninkan abiye iska hadlaya ee ruwaayada matalaya iyo dadku malqayaan la hawla wala warbad Afrikada kala ka qaadan lahaa Kenya agaarkayga oo dhan waa bilaabad oo Afrika wadadka ka ragnay badiyay ninka bad doonayay Daahir Rayaale saa laguma qaado bad tolkayna waxaan ka codsanayaa
labada saxaaradood zaylac iyo lughaya ciise maahina qof kale inuu ka soo bixin waxaana inagu aabayaashay adeeraday waalidaday la hadlayaa meel kastoo ciise degan yahay bishaa rabadaan quraan saar waxaysta wixii ini dhibaateeyey 4 sanana ilaahay gacmaha xirka u taaga si degdega ilaahayow 4 sano bilaa takhtar bilaa centre communautaire meel yar oo iskool lagu dhigto ma waxayn way kala dagaaltamayeen aqoon caafimaad dikad xasbiya allah wanima wakiil kolkaa wakaa kolkay boorow ku noqdeenna guddiis ka soo saaray ka yidhaheen ciyaaladii tiktokeradii waa nii warramaynaaye maxay warramayaan warkaba waa lahayaa warkaa waa intaa weeyaan shaydaanadii baa dee laga xidhxidhay cirro oo shaydaanna ma jiraan kolkii hore waxaa laga dhaadhiciyey ciise ma jooga zaylac ana kaale in 4 sano ayaa waxa ka soo baxa waa 20% cashuurta ka soo baxda 20% ka soo baxa dhulka ciise waa la dhaafinayay inta kale dhulka isaaqa la geynayay inna waa loo tuurayay sabis hadda loo tuurayay boorama kolka way ku madqeen ayaa andhow wanigii markay nin aaqila oo lahaa dowladda hoose qof ciise kama saqay boorama inikuna dadkan oo dhan iska soo wala kaxeeyo qof gada bulshay inuu ka shaqeyn ilaahay dad khaniin xildhibaanada ciisahana inama yaro qayrkood iska dhaba ka dhigta xildhibaano tolkayow wixii ka soo baxay xalay afturkii waa intaa guddi ayaa waxaa u magacaabay buu yidhi ها عبد الله سليرة نقاط يالدان قريها سيني قرمه عيسانا قدل نورديك عبد الله سليرة وقعنت يدن بديك بيوري نبضنا مارتي قدي بانو ساري وكور سوغيا كل كاردقها تاغا عيسى وحا حكومة وقاس مصطفى محمد الراهن إلهي عبريكي سار ديري شرفتي سار ديري عافماتكي سار ديري سيجي قندديسة يا عقلة كلابا جف عقلة كل كاتلقيو أفر يصد سنة دولم كنا ليدنا بشار ربع دولم كيو نيجا دولك عيه قرآن صار وحيستا أو ما ركتي لما دافو حير كاغا لما دافو أفر يصد سنة أي دد ما ركت إلهي نبيو قرر إن هلان